walaalaheena qaaliga ay asxaabteena soo dhawaada channelkeena deeq alla channel. haddaba maanta waxaan idin wadaa barnaamij ku saabsan maxaa sababay inay mar kale Lubnaan ka dhacaan dibadbaxyo gilgila. sidaan ognahay Lubnaan waxaa ka socdo dibadbaxyo aad u ballaaran dhawaanahan. dibadbaxyadaas ayaa mar kale ka bilowday dhowr magaalo oo ka tirsan dalka Lubnaan. mudaharaadyada oo u muuqday inay yara istaageen kadib markii uu ra'iisul wasaarihii dalkaasi Saacad Xiriiri uu ku dhawaaqay inuu iscasilayo ayaa haatan mudaharaadyadii dib u soo noqday. dadka mudaharaaday waxay dawladda ku eedeynayaan inay sidii la rabay aysan ugu jawaabin shacabka waxyaalaha ay ka cabanayeen. ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan ayaa iscasilay talaadadii la soo dhaafay, balse dibadbaxayaasha haatan dib u soo laabtay wadooyinka ku soo laabtay ayaa waxay sheeganayaan inaysan wali qanacsanayn oo waxa ay doonayaan inay gabi ahaanba meesha laga saaro dawladda haatan jirta oo isbedel lagu sameeyo habka siyaasadda dalkaasi. mudaharaadyada ayaa maamulka haatan jira waxay ku tilmaamayaan inuu yahay mid musuqmaasuq daashaday, sidoo kalena loo aaneynaya shaqo la'aanta baahsan ee ka jirto dalka Lubnaan, iyagoona wacad ku maray inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ilaa uu dalkoodu ka dhaco isbedel dhaba. Tony Mihana waxa uu ka mid yahay mudaharaadyada isagoona ugu soo baxay magaalada Beirut. waxa uu leeyahay waxaan u soo baxay inaan sharaxo micnaha saxda ah ee isbedel la yiraahdo. waxaan maanta ka nimid meel fog oo dalka Lubnaan ka tirsan si aan uga qayb qaadano mudaharaadyada muujinayo kacdoon waxa uu yahay iyo doonista shacabka waxa uu yahay. dadka aad ay u daalan yihiin ayuu yiri Tony Mihana. waxaan doonaynaa dawlad dib u soo celiso xuquuqda shacabka, balse ma jirto cid shacabka dhageysanayso oo ma jirto cid ina maqlaysa. marka waxaan moodaa inaan ku noolnahay laba meelood oo kala duwan ayuu Mihana intaasi ku sii daray. dhanka kale waxaa jiray mudaharaadyo kale oo lagu taageerayay madaxweynaha Michel Aoun, kuwaas oo aaminsan in Michel uu yahay ninka saxda ah isbedel ka sameyn karo dalka Lubnaan. Alain Aoun oo adeer u yahay madaxweyne Michel Aoun sidoo kalena xildhibaan ayaa sheegay in haddii gabi ahaanba meesha laga saaro habka siyaasadeed ee dalka ka jira ay sababi karto khalalaaso iyo burbur ka dhaca dalka Lubnaan. dalka wuu qaybsan yahay, waxaa jira dad mudaharaadyada iyo wax walba ka hor imaadsan iyo dad taageero fiican ka haysto. arrintaasi waxay si gaar u qusaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda. marka aad dalbanaysa nidaamka oo dhan inuu meesha ka baxo, waxaad ugu yeeraysaa ayay ka dhigan tahay fowdo iyo dawlad la'aan. habka ugu wanaagsan ayaa wuxuu yahay in hay-adaha xoog la saaro, cabashada shacabkana la dhageysto si uu isbedel muuqdo ugu imaado. sidoo kale dibadbaxyada ka dhacaya dalka Lubnaan waxa ay bilowdeen 17 Oktoobar kadib markii dawladda ay canshuur ku soo rogtay tubaakada, batroolka iyo wicitaanka WhatsApp-ka. inkastoo markii dambe dawladda ay meesha ka saartay oo arrintaas ay ka tanaasushay, waxaa wali muuqata in waxyaabihii ay ka cabanayeen dadka sanadkii laga soo dhaafay hore 2012 xilligaas uu kacdoon ballaaran ka dhacay dalka Carabta ay wali ka taagan yihiin.